go'aankan ay soo saartay maxkamadda sare ee dalkan Kenya ayaa ka dambeysay kadib markii dhawaantan dawladda Kenya ay ku dhawaaqday inay ka fikirayso sidii dib loogu celin lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee waddanka Kenya. maxkamadda sare ee Kenya ayaa go'aamisay inaan la celin karin dadka qaxootiga ee Soomaalida ee magaalooyinka Kenya ku nool, iyadoo arrintaasna loo codsanayo maadaama weli dalka Soomaaliya oo dadka Soomaalida ay ka yimaadeen uusan nabad ahayn. maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka Kenya aysan beegsan karin dadka Soomaalida hase ahaatee ciidii qaranka Kenya dib ka gashay la beegsan doono sidii hadalku dhigtay. hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli bilihii December iyo January ay dalkan Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ay ka dhaceen howlgal ballaaran kaas oo lagu raafay Soomaali aad u fara badan. maxkamadda sare ee dalkan Kenya ayaa soo saartay go'aankana inaan la qaban kareynin qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalkan Kenya, ayadoo taa ay ka dambeysay kadib markii muddo fara badan ay arrintan soo socotay. haddaba waxaan jeclahay in arrintan wax ka weydiiyo Xuseen Aar oo gudoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada ee xaafadda Islii oo inala taagan. ugu horeyntii bal gudoomiye ku-xigeen arrintan maxkamadda ay soo saartay iyo waxay tahay. bismillaahi raxmaani raxiim. shalay maxkamaddu waxay go'aan gaarsiisay inaan qaxooti mar dambe la qabanayn ama xeryo lagu celinayn wixii magaalooyinka jooga ee sharci ku lahaa. waxaanay banaysay in xafiisyadii u adeegi jiray qaxootiga dib loo furo si ay warqadahoodii hore ee meesha kaga xidhnaa u helaan. sababtuna waxay ahayd bishii 11aad waad ogeydeen in qaxootiga la iskaga dhexdhacay, la raafay, si xum loola dhaqmay. maxkamad baanu tagnay bishii 11aad, markaa warqad bayna siiyeen lagu joojiyey raafkii ka bacdii maxkamaddu way socotay. shalayna go'aan bay gaadhay inaan qaxootigu uu xaq u leeyahay inuu magaalada joogi karo mar hadduu isagu isku filan yahay. waana dawaa'ilka oo dhan baa sharcigaasi ka jira. Kenyana way qaadatay. markaa waxa weeyaan shalay waa cusub baa u beriyey qaxootigii. Xuseen Aar ayaa dhinaca kale dadka shacabka Soomaalida ugu yeeray inaysan lacag siinin ciidamada ammaanka Kenya marka ay ku qabtaan howlgallada ay ka wadaan xaafadda Islii. haddii ay qof qabtaan telefoonadii waanu haynaa, waana ka sheegi doonaa mar dambe salaasada markaan warqadda helno press conference baanu qabanaynaa. telefoonadaanu meel walba ku dhejinaynaa in qofkii uu ogolaado in booliiska la geeyo aanu lacag bixin. maxay noqotay lacagtan bixista ayaa inoo keentay adigaaga muslimka ah haddaad meel lacag hawlyari uga helaysid waad qaadanaysaa. booliiskii waxay noqdeen inaynu suuq u noqonnay. Cabdullaahi Axmed Nuur, Kalson TV, magaalada Nairobi.